salaamullaahi calaykum. Nin aan dhul marin dhaayo ma lahane, weli ma ku safartay inta u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya. Waa sheeko ka hadlaysa rafaadka iyo dhibka Soomaalida ka qabsada tahriibka Kenya lagu galo. Waana qalinkii qoraaga Soomaaliyeed ee Cabdirasaaq Xasan Jidhi. balse inteenan u gudbin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka inoo sheer garayso oo aad asxaabta kala gaarsiiso. waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan. magaalada Gaarisa waxaan tagay aniga oo laysii cabsi geliyey col hortii anoo jabay. baska saabiriin ay dhahaan ayaan bartanka suuqa uga degnay annagoo 3 ah. hotel yar oo nooca safaraydu ay isu gaabiyaan ayaan ijaaranay. galabtii gabar sheex noo keentay ayaan xagga lahjada isku fahmi weynay. tarmuus ayaa sax ah iyo falaas ama jubbad ayaan isku qabsanay. xaggee ka imaateen markayna dhahdayna been ayaan eber uga dhignay sida balanteennu ahayd. Mombasa ayaan u sheegnay iyo inaan xamar ku wajahannahay. maqribkii kadib waxaa hoteelka yimid 3 nin oo reer gubta aan isla ahayn, balse 7 sano ka badan aanan is arag oo Kenyadan ku dhex lunsanaa. sheeko waalan ayaan meeshii ku qabsanay. ragga mid ka mid ah oo ay Cabdinuur dhihi jireen af Sawaaxiligana ku gabya ayaan magaaladii isku raacnay. intii aan maqnayn waxaa hoteelkii noo dabamareeyay booliis tilmaamaheena, tiradeena iyo qolka aan hoteelka ka degannahayba la siiyey. 2 nin ee aan isla soconnay waa lala kacay. aniga iyo Cabdinuur waxaas war uma hayno oo maqaaxi dubnad lagu ciyaaro ayaan ku caweynaynaa. 5 saac oo habeennimo anigoo hurdo indhaha kala celin la ayaan hoteelkii nimid. mid albaabka ku qayilaya ayaa nagu salaamay in raggii kale la watay. anigana ilaa caawa la isugayay oo mar dhow booliisku meesha ka tageen, balse ay goor walba soo laaban karaan. war naxdin leh ayuu ahaa, balse waxaan aaminsanaa in cidda la xiro ay jeebkeeda uun ku fakan doonto. adduunka waxyaabaha ugu daran waa inaad xabsi Afrika ku yaal aad gasho. aniguna ma tuhmin cid aanan shaaxleydii ahayn. ninkii hoteelka lahaa ayaa inta ila cararay qol gadaale i geeyey. surwaalkii jeeniska ahaa ee aan xamar kala tegay iyo daalkii aan jubbooyinka ilaa xerada qaxootiga ku maray ayaan sariirtii kala duldhacay. anigoo u maleeya inaan saacad ka yar jiifay ayaan ku kacay toosh weyn oo indhaha la igaga hayo. aad baan u argagaxay oo meel la iga soo galay ayaan garan waayey. booliiskii ayaan u haystay, balse wuxuu noqday kirishbooygii gaarigii Nairobi i geyn lahaa. marka Kenya la joogo, kirishbooyada magaca waa loo qurxiyaa oo waxaa la dhahaa kondakte. salaadii subax ayaa markaa laga sii baxayay. jaanis aan 2 indhood biyo ku marsada ayuu si dirqi ah iigu oggolaaday. inta ila soo cararay suuqa dhexdiisa ayuu i keenay sandaqad yar. Sawaaxili ma taqaanaa ayay i dhaheen. maye kabasiliga caadiya ayaan ahay, xalkeena ayaan idhi. waxaa la soo bixiyey kibaandhayaal aanan 100 xabba ka yarayn. mid ii eg ayay ka fiiriyeen, balse kama helin. markii dambe kibaandho uu ku qoran yahay magaca Muxudiin oo nin qanjab buuran ku sawiran yahay ayay dhaheen magacaan dusha ka xifdi. Gaarisa waxaan ka tegay anigoo Kenyaatiga ka cabsoonaya, balse aanan qof Kenyaatiya arkin. baskii Nairobi aadayay markii aan sii raacayay waxaan caawiyey gabar canug yar iyo alaab kale isku wadatay oo reer Gaarisa ahayd. way i fahantay inaanan wax sharci ah wadan. iyadii ayaa filimkii iiga dhacday. marka askarigu soo galo, af Sawaaxili ayaan kugula hadlayaa ee adiga oo madaxa ruuxaya waxaad keliya dhahdaa sawa sawa ayay i tiri. sidii baan ilaa Nairobi saawada ugu hayay. haddaba saaxiibayaal, waxaan filayaa inaad sheekada ka bogateen. inoo soo qor oo inoo reeb aragtidaada iyo waxyaabaha kaa yaabiyey ee sheekadan aad ku daawatay. sidoo kale inala wadaag haddii uu jiro safar xasuus ama uur ku taallo kugu reebay. muuqaalkan waxaa laga yaabaa inay asxaabta kale ka faa'iidaystaan, waxna ku qaataana inoo sheer gareeya.